السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلامتين داوديال meel walba joogtaan isi walba u daawanaysaa muuqaalkan kusoo dhawaada cashirkeeni shanaad ee koorskeeni la magac baxay Advanced Computerized Accounting oo aynu ku baranaynay softwarekeeni Page 3 insha Allah cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee baa loo abuuraa customer iyo waliba sidee baa loo abuuraa vendor balse intaan faahfaahin dheeri aan siin kusoo dhawaada muuqaalkeena cashirkaani waxaan ka leenahay laba ujeedo ujeedadiisa koowaad waxay tahay inaan isku dayi karno ama aan samayn karno customer waxaan rajeynayaa inaad garanaysid customer waxa laga wado customer waxaa laga wadaa qofka adiga macaamiil ku ah qofka adiga wax ka iibsada muhiim maahan inaad diiwaan gelino customer walba oo ku xiran kambanigeena balse waxaan diiwaan gelinaynaa keliya customerada aan deegaanka siino isla markaana lacag noo dhiibta bal waqti xaadirkan aan idin tuso sida loo sameeyo customerka okay marka hore waxaan rabnaa inaan abuurno customer waxaan tegaynaa 19 waxaan kasii dooranaynaa customer and prospects shaashada ayaan soo baxay waxaa la rabaa customerka inaan ka buuxino meelaha noo banaan meelaha qaar waa ka tagi kartaan laakiin waxaa ugu muhiimsan inaan customerka ID-giisa iyo magaciisa iyo waliba customerka lacagta aan ka gato akoonka ku xarooleed inaad samayso oo sales revenue ay ama service revenue hadaa service qabato ama dakhliga akoonka dakhliga kugu aruurayo inaad ku xirto okay ID-giisa waxaa leedahay C001 ID-ga waxaa rabtaa ka dhigi kartaa okay name ku saar magacana waxaa ka dhigaynaa magaca qofka magaciisa ka dhigaysaa tusaalahaan waxaan ka dhiganaynaa Abbas okay qaybta soo imaanaysaa akoonka bill addresska zip waxaas kuma buuxin kartaa wadanka sales tax kullu buuxin kartaa hadaa rabtaan waa scratch kartaa okay akoon numberkiisa ayaa laga rabaa inaad meesha geliso akoon numberkiisa waxaa leenahay sodonico dash adiga laga rabaa inaad gasho okay addresskiisana waxaa la rabaa inaad geliso meesha uu degan yahay aniga Soomaalidaana address ma lahayn okay kaboodkaas waxaa leenahay magaalada degan yahay city waa Muqdisho state-kan waxaa leenahay Banaadir zip-kan waxaa leenahay 252 okay wadankana waa isla maqaana waa Soomaaliya okay canshuur ma bixiyo halka waxaad gelinaysaa reference waxaas haddii aad rabtaan waa iska dhaafi kartaa okay hadda waxaa joognaa general waxaa tegaynaa sales information meesha qoranta sales info okay sales info markay tagto halkaan ay qoran tahay GL sales account ayaa muhiim inaad geliso waxaa gelinaa akoonka haddii aan wax ka gadno lacagta ay ku dhacayso okay akoonkaasna waa sales revenue ama dakhli anaga sida akoonka ugu sameysay ku xidhan okay anaga waxaan ugu qoran dakhli aan ugu qoran kadib waxaan leenahay save markaa dhacdo waxaan leedahay close okay haddeertaan hal macaamiil aan u samaysan sidee ku ogaan karnaa macaamiilka u samaysan waxaan tegaynaa 19 waxaan kasii dhufanaynaa customer kadib waxaan ku dhufanaynaa list waxaa ujeedaa inuu noo samaysan yahay hal macaamiil oo ID-giisu yahay C001 magaciisana uu yahay Abbas telefoonadiisa aan soo xareenin balancegiisana uu yahay 0 halkaas waxaa ku eg ujeedkeena koowaad ee cashirka waxaan rajeynayaa inaad fahantiin sida loo abuuro customerka isla markaasina waxaan hubaa inaad samayn karto ama aad abuuri karto customerskaaga aan u soo laabin ujeedadii labaad ee cashirkeena ujeedadiisa labaad waxay tahay sidee baa loo abuuraa vendor ugu horreyn waxaa muhiim ah inaad fahanto vendor wax laga wado vendorka waxaa weeyaan qofka adiga wax ka soo iibsato qofka adiga alaabta aad iibiso ama alaabta aad wax ka samayso aad ka soo iibsataa waxaa loo yaqaanaa vendor kambanigeena alaabta uu iibiyo wuxuu uu ka soo iibsadaa kambani kaleetood sidaas darteed kambaniga wax ka soo iibsanayo waxaa loo yaqaanaa vendor waxaa rajeynayaa inaad fahanteen wax laga wado micnaha ereyga vendor haddeertaana aan isku dayo inaan idin tuso sida loo sameeyo ama loo abuuro vendorska markii aad abuurayso vendor asiin waxaad tegaysaa halka qoran tahay 17 waxaad kasii dooranaysaa vendors markaa vendors aad doorato shaashada aan kuu soo muuqan doonto isla sida haddeertaan waxaa lagaaga baahan yahay inaad geliso vendorkan ID-giisa magaciisa addresskiisa numberkiisa waxaas inaad gelisaa lagaaga baahan yahay laakiin waxaa ugu muhiimsan ID-giisa inaad geliso magaciisa inaad geliso iyo akoonka markaa wax kasoo gadato lacagta ay ku aruurayso on cost of goods sold haddaa wax soo gadato akoonka gelis maxaa loo yaqaanaa waa lafaha cost of goods sold vendor ID waxaa dhehna tusaalehaan V001 oo kaleeto asleena waxaa leedahay meesha wax kasoo gadato magaceed maxaa la tusaale aniga waxaa leenahay Sudan spare parts okay
expense akoonka lagaga baahan yahay gelis falaarta helista ayaa furaysaa waxaa kusoo bixi doona akoonadaada idin okay anaga had yartaan akoon nooma samaysno oo ah cost of goods sold marka waxaa ku qasbannahay in akoon cost of goods sold la soo sameyno haddii ku samaysan yahay cost of goods sold waad dooranaysaa kadibna save aad leedahay laakiin hadda anaga manoo samaysno so waa inaan sameynaa waxaa leenahay new markaa dhaan qaanadan aynu keenayaa okay akoonka ID-giisa ayaa halkaa gelinaynaa tusaalahaan akoonka ID-giisa waxaa leenahay akoonka 11 oo kaleeto ID-giisa waxaa leenahay 11 okay descriptionka waxaan ku qoraynaa cost of goods sold okay account type-kan waxaa waaye account type-kan waxaa ka dhiganaynaa cost of sales okay kadibna waxaa leenahay save markaa dhaano iska galgalaynaa markaa galoos dhaano had yartaan waxaa noo samaysan akoonkii cost of goods sold lasoo sameynay marka akoonka ayaan inta ka dhex raadinaynaa okay sida idiin muuqato hadda uu soo galay ID-giisana waa 11 okay vendorka contactkiisa numberkiisa gelinaysaa tusaalahaan 002526115 okay account numberkiisa gelinaysaa meeshaan tusaalahaan 31 adresskiisa gelinaynaa adres laakiin ma haysano city egypt waa geli kartaa telefoonkiisa waa telefoonkiisa laad focus duuliyaha emailkiisa websitekiisa kulli waa gelinaysaa laakiin muhiim maaha waa ka tagi karta daarto waxa ugu muhiimsan waxay tahay vendorka ID-giisa inaad geliso xataa magaciisa muhiim maaha adhowti vendorka ID-giisa bisoo ku aqoonsanaa okay waxaa muhiim ah inaad geliso vendorka ID-giisa iyo weliba akoonka markaa wax soo gadato lacagta ay ku aruurayso okay oo cost of goods sold okay kadib waxaan leenahay save markaa dhaano close iska dhiganaa marka haddeertaan waxaa abuurnay vendorkan aan abuurnay sidee ku ogaan karnaa waxaa leenahay maintain waxaa kasii dooranaynaa vendors sidaa marka kusoo baxdo waxaa kasii dooran doonaa list waa ujeedaa waxaanu abuuran hal vendor oo magaciisu yahay Sudan Sperbarts contactgiisu uu yahay saas telefoonka haddii aad soo gelinayn waa noo samaysnaa balancegiisuna uu yahay 0 halkaasina waxaa noo yeel cashirkeenii waxaan rajaynayaa inaad fahantay cashirkeenii shanaad isla markaasina aad daawan doonto cashirka xiga iyo cashirka lixaad waa Cabdibaas Xasan Nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi karaa ha noqon dhinta aan la tabin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh